khudbad sanadeedii madaxweynaha Soomaaliland u jeediyay labada aqal baarlamaan ee Soomaaliland ayaa duqada kormeer ku marayay mashaariicda ay dawladda hoose ka hirgelisay degmada Gabiley iyo qaab magaaleedkii ah wasaaradda hawlaha guud ka waday Gabiley ayaa waxa uu hambaliyay iyo bogaadin u diray madaxweynaha Soomaaliland isagoo ku hambaliyay khudbad sanadeedii halkaasi ka jeediyay ee dhinacyada badan taabanaysay u hambaliyayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanu ku hambaliyayna khudbad sanadeedkiisii uu jeediyay xaway labada gole baarlamaanka uu jeediyay madaxweyne waxqabadka aad ka hadashay waanu ognahay waanu ka warqabnaa waana wixii runtii xukuumadda aad garwadeenka ka tahay laga filayay aad iyo aad baanu kugu hambaliyayna waxa kale kugu hambaliyayna siyaasadda arrimaha dibadda iyo tallaabooyinka wanaagsan ay dawladdu iyo xukuumadda garwadeenka ka tahay ay ka qaaday insha Allah ta'ala ana waxay u muuqataa in wax weey rajadii ictiraafka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhowdahay waxaanu kugu hambaliyayna go'aanka qiimaha leh ee aad ka qaadatay arrimaha doorashooyinka ee ah in aad soo jeedisay in la furo xisbiyadii ama ururadii arrintaas waa arrin aad iyo aad u wanaagsan dadweyne fara badan oo han siyaasadeed leh ayaa ka dhur sugayay inay wax weeye ay xisbiyo iyo ururaynta la furo xisbiyo la soo baxaan rajadii dadka hanka siyaasadeed leh waa soo nooleysay aad iyo aad baanu kugu hambalyeynaa kugu garab taaganahay golayaasha sharci dejintana waxaanu ka codsanaa arrimaha uu madaxweynuhu ka hadlay wixii sharciyan looga baahdo inay fudaydiyaan waayo mustaqbalku uu isbedelayaa dhalinyarta iyo dadka hanka siyaasadeed leh waxay u baahannahay in laga shaqeeyo platform ay ku soo bandhigi karaan damacooga iyo afkaartooda iyo hankooga siyaasadeed marka madaxweyne aad baanu kugu hambalyeynaa arrintaasi waa asiibtay cid kasta oo arrintaas khusaysan waxaanu ka codsanaa insha Allah ta'ala in ay kala shaqeeyaan madaxweynaha hirgelinta arrinta aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ba ugu mahad celinayna uguna hambalyeynaa madaxweynaha oo leenahay hambaliyo Muuse Xuseen Xasan warbaahinta Star gobolka Gabiley